in laga hadlo way qurux badan tahay inkastoo annagu Soomaali haddaan nahay aan qabiilka aad u caabisanahay oo caabidsanahay qabiilna wax ma taro waxaa tara talkeen iyo dadkeen iyo diinteeda iyo shacabkeena Soomaaliya inaan badbaadino qabiil wuxuu tara male barkee taas waxaa cadeyn u ah oo ama daliil u ah aniga kii ila dhashay baan ku dhaganahay maanta dawladii Soomaaliyeed ee lagu aaminay intaasoo sano loo ooyay loo jiif iyo joogba loogu waayay maanta uu dhinac maray ballamuhu qaaday wuxuu ku dhaartay maanta waxba uusan Soomaalidii shacabkii hankoodii ay u qabeen maanta ay u hanjabeen oo maanta laga ooyayo dhibaatada wadanka ka jira dadna ay nin qabiil ku taageerayaan nin wadan iibsaday ama dal iibsaday ama bad iibsaday ay ku taageerayaan qabiil laakiin anigu waxay tahay Soomaali waa mid barkee walaalkayga ila dhashay aabay hooyaday ila dhaleen baan maanta aan ku dhaliilsanahay dawladda maanta meeshu ka taagan yahay baan ku diidan oo ku dhaliilsanahay macadar la mid aan qabiil wadaagno marka anigu waxaan aad iyo aad uga xumahay anigu waxaan ka hadlahayaa afar xaaladoodba waan ka hadlahayaa xaaladda waxa inoo sheegtay inaad ka hadli doonto afar qodob oo aad u muhiim ah qodobadaas maxaa kamid ah afar qodob oo aad muhiim baan ka hadlayaa qodobka ugu sarreeya waa midkii uu ku soo madaxweyne ku noqday ee lagu caleemo saaray oo ballanta ku qaaday inuu askarta masaakiimiinta uu mushahar u qoro uu askartii maxay ahaayeen wax u qabto uu askartii lacagta u kordhiyo uu nabadgelyo wadanka soo celiyo deegaankii shacabkaas masaakiimiinta dhibaatada haysta inuu dhibka ka qaado maxay ahaayeen ilmaha yar oo masaakiimiinta ahna in maxay ahaayeen waxbarasho u furo ilmahaas kii ama al-shabaab soo sheegana uu wadanka ka dhoofiyo ama waxbarasho u diro familkii soo sheegana uu lacag uga ballan qaaday aad waxaan uga xumahay ballamihii uu ballan qaado kutubka uu maray waa kan uu dhinac maray oo ka mid ah inuu yiraahdo askartii Soomaaliyeed waxaan rabaa inay ku shaqeeyaan free lacag la'aan inay ku shaqeeyaan amisonna ay lacagta loo kordhiyo taas uu ku feelgaroobay Maxamed Cabdullaahi tan labaad uu qarxii weynaa ee ka dhacay wadanka dadka lagu baabiyo lagu xasuuqay Soomaaliya iyo qarxii ka dhacay lagu xasuuqay shacabka Soomaali bariire iyo ilaa hadda iyo ninkii wadaniga ahaa Soomaaliga ahaa ee Itoobiyaanka loo dhiibay uu cadaystay maanta Itoobiya inuu u dhiibay nin wadani ah Soomaaliya uu yiri maxay ahaayeen anaa dhiibay magtiisana waan bixinayaa shalayna markuu soo galiyay madaxweyne ku soo galayna waxay ahayd inuu yiraahday anigu Ethiopian baan saaraya wadankan nadiifinaya qaranimaan soo celinaya wadannimada soo celinaya wadankan wax u qabanaya xaq ma ahayn nin wadani ah horta inuu u dhiibo dad ajnabi ah gacanta ka saaro maanta cadaysto maxay ahaayeen inuu asaga dhiibay uu yiraahdo mag baan bixinaya talabaad sida aan wada xasuusano askartooda xaqooda uu inkirayna horta taasna war cad uma noqonayso labo ciyaalkii yaryaraa maxay ahaayeen uu yiri qalinka ha qaadan inay xabada qaadana taasna uma noqonayso daliil uu ku daliilo inuu Soomaaliya oo dhan ku hogaamiyo tan afaraad ay tahay maxay ahaayeen inuusan wadankii iyo dalkii waxba ka ogeyn oo qol ku jiro uu marna sii baxayo marna soo noqonayo asaga khayre iyo Mustafa Dhuxulow iyo Fahad Yaasiin ninka madaxweynaha meesha ka ah ay wadanka boobaan uu yiraahdo asagana la yiraahdo Fahad Yaasiin ee dadka shacabka xasuuqaan horta taas mid laga filanay ma ahayn marka anigu waxaan oran lahaa Maxamed Cabdullaahi nin caadi ah maaha nin wareersan weeye nin waalan weeye nin meel u socday meel ka socdo uusan garanaynin waay oo wadan iyo dawladnimo iyo maamul aan waxba ka ogeyn midda labaad waxaan ku sheegayaa maanta waxa cajiib ilaaha shirki uu ka qayb galay midowga carabta ee muslimiinta ee Turkiga lagu dhigahayay annagu ma Ciraaq baan nahay mise Soomaali baanu nahay calankii Soomaaliya xitaa muu ag fadhiya calankii Ciraaq buu ag fadhiya taa waxa cadeen waa Soomaalida cadeen u noqonaysa ninkaan inuusan caadi ahayn ninkaan inuusan normal ahayn ninkaan inuu shacabkii baabi'iyay inuusan dawladda idilay haddaan ka dhex galo haddaan kaa dhex galo waxaa jirtay in la yiri in lagu dhaliilay waxaa jirtay baraticool xumo ah in markii loo fidiyay maczuumaadda loo fidiyay ee ururka jaamacadda jaamacatul muslimiin jaamacad carabeed kaliya maysan ahayn waxay ahayd ururada maxaa la yiraahdaa madaxweynayaasha
ay midayso jaamacatul muslimiin ay midayso oo wadamadooda ay ku nool yihiin dadka muslimiinta ah si ay uga hadlaan arrimaha qudus waxaa jirtay dhaliil ah in aysan isi soo diiwaan gelin waa loo diray email baa loo diray in aysan emailka kasoo jawaabinin oo ah in aysan dhihinin waan imaanaynaa invitationkii si loo qaabilo waxaana loo sheegay oo nagu maqaalaa in maxamed cabdullaahi farmaajo markii uu ka deganaya magaalada istanbul ay safaaradda soomaaliya soo qaaday keli ah aan loo haynin xataa wax ciidan ama wax ilaala ah ama wax soo dhaweyna oo ka badan soomaalida sida la sheegay la yiri ina waxay ahayd ina markii emailka la idiin soo diray in aad soo jawaabto waxayna ku timid la yiri bartikool xumadiina haddana aan loo haynin wax kursi ah laakiin maadaama uu yimid uu yiri uu yahay madaxweyne ummadda Soomaali ah lagu qiimeynayo kursi la fariisinayo arrintaas maxaa ka jira والله محمد عبد الله ما أنت قيمة درهذا كل عضي ووحى أساس جيستي ووحى اسكو جيستي because وحكم إذا وحيالها وكل رقم هاي وحكم إذا نين عن قول هينو يهاي وحكم إذا لحياة أو لحياة عياسي هاي وحكم إذا جوان لعنته وحكم إذا شيء ملهن حتى نين هن حتى معهن هن حتى ملهن because نيك مركو هن ليه هاي وإنه مدحني مديسة وشرف كلية هاي وإنه هن كلية هاي وإنه قدرين كرا وإنه قيمة ليه هاي محمد عبد الله نين قيمة لمرة نين دول كيالو نين قيمة ما أنت مدحوينها كي يقول لي الصومالية واي ومدكي يقول لي تاسنا waxaa keenaysa khiyaamada iyo beenta uu ku hadlayo iyo isbedelka iyo khaainimada uu ku jiro asaga iyo groupka uu wato uu kowka yahay Fahad Yaasiin marka taa waxa cadeynaysa Maxamed Cabdullaahi inuu san madaxweyne ahayn ninka madaxweynaha meesha ka ee maamulka haya ee dadka kala cayrinaya ee gacanta ku haya dirahaya oo dhahay ord noo soo tuugsitag ninka leeyahay Fahad Yaasiin iyo Khayre iyo Mustafa Dhuxulow nimakaasa madaxweyne ka asaga wuxuu ka yahay male waa maqaar saar waxna ma kala oga waana nin wareersan waana nin waalan marka leeda waxba kama oga marka leeda waxba idilay aan ka dhex galo markii leeda waxba kama oga wax ka ogaasho asaga isa soo bandhigay shalay oo yiri waxaan rabaa inaan noqdo madaxweyne Soomaaliyeed shalayna anigaan kula hadlay as a personally anigaan kula hadlay haddii aan kaaga soo qabto matal ahaan waxay dadkii usoo waxaan ku jiray dadkii habeenkii markii la dooranayay u soo jeeday oo u safnaa oo shalana jeclaa inuu madaxweyne inoo noqdo maxaa la yiraahdaa safkan ugu jiray habeenkii oo dhan gurbaanka iyo soodhada iyo qaybinayo dhahay hadduu farmaajo guuleysto intaas waxaan bixinaynaa marka waxa hadda inoo muuqda inay tahay kaaf iyo kala dheeri shalay meeshii uu joogay markuu ra'iisul wasaaraha ahaa marka uu ka dagay xilkana qof walba oo Soomaaliyeed ee indhihiisa ilin ku soo istaagtay oo la yiri way looga qaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilka looga qaaday oo u wada ooynaynay marka waxa leedahay hadda maxaa isbedel oo yimid maadaama adiga tahay walaashiisi maxay tahay isbedelka yimid oo asaga ku dhacay isbedel ahaan ma problem kale taa haysta ma waxa ku dhacay waxa la yiraahdo homesick ma wadankiisii u xiisay oo wadanka uu dhowr 20 sano ku noolaa ilaa waa wadankiisii oo kaleeto ma waxa ku dhacay homesick baa ku dhacay oo wadankii buu jawigiisa fahmi waayay ma mental ahaan buu u xanuunsan yahay adaa rabnaa inaan noo kala saartaas محمد عبد الله هرت أنا إلى الشيء أنا وراكي أنا إذا كوضا بدية شلي من بعد أركتين نين سروالي شات إذن سوق اشتي بعد أركتين محمد عبد الله إلا مدلباتن يسمتنا نين سحران بوها نين مالكو حران بوها مركي شيخ شريف لوكي نايرا نين لوصح لي بوها nin wuxuu ahaa sheekh shariif la shaqaynayay hawshana waxa wada sheekh shariif asaga ma wadin ninka nin sixran waa nin iska socda waa dharka waa loo geliyaa waxa la yiraahdaa su'aal yiraahdaa waxaasa ku dhahaynaa sameey baa la yiraahdaa ninka nin fiyow ma aha nin sixran waaye nin la hogaaminayo weeye nin aan go'aan lahayn waaye nin wareersan waaye nin wuxuu ku hadlayaan kala aqoon waaye nin been badan waaye oon ahayn nin maxay ahaaytay run aqoonin nin fariisa kala hadhaya weeye nin khaa'ina weeye oo khaa'in wadana weeye Maxamed Cabdullaahi waana nin waalan ninka hadduu waalan yahay joy dawlad laguma aamini karo taasna waxaa daliisheeda ah intuu dawladda hadda hayay sidoo ku dhaqmahayay dhaqanku ku jiray iyo sidii shalay lagu soo doortay oo Soomaali oo dhan ugu ooyday midna Soomaali kama aysan helin mid ay Soomaali ka heleen ma jirto iyo Soomaali wuxuu qabtay marka Maxamed Cabdullaahi iyo groupkiisa waxay u yimaadeen qaaliyay walaalo waxay u yimaadeen
in maxay ahayd waddanku boobaan inay dadka shacabka laayaan inay waddanka xasuuqaan inay waddanka cadaawo u keenaan inaysan nin walbaba jeebkiisa calooshiisa uu ka hadlo waddaninimana aysan jirin facebookaanad arkaysid xitaa dad bay lacag ku soo siiyaan inay dadka caayaan aflagaadeeyaan waa lacag masaakiimiinta canshuurtii laga qaadayay ayay dad siiyaan marka asaga dibadda diyaaradda uu ka dhigtay gaariga diyaaradda uu gaariga ka dhigtay waa diyaaradda wuxuu gaari uga dhigtay shaqaa loo diraa inuu lacag inuu tuugsi tago uu lacag adduweynaha ka soo tuugsado kabacdina lacagtii la wada cuno oo qayriinka lagu wada cuno tuugga hadduu maxamed cabdullaahi nin fiican yahay tuug waddanka maxay ahaydeen oil gas oo maxay ahaydeen tuugaha oo laga wada og yahay khayre wuxuu yahay oo newska laga sheego oo maxay ahaydeen semen oil ku jiray oo tuuga horta prime minister ma ka dhigteen maxamed cabdullaahi hadduu nin fiican yahay hadduu waddanka sharaf ka rabo hadduu wanaag ka rabo nin wanaagsan oo wada shaqayn yeeshaan oo maamulka wada shaqeeyaan oo dadka shacabka iyo dadka iyo diintaba badbaadiyo keensan lahaa ma keenin tuug farihiisa kala xadahaya tuug maxay ahaydeen oilka waddanka iibsanahaya tuug waddanka iibsanahaya tuug jaajuuska tuug aan maxay ahaydeen dumaanimo iyo محمد هلا عسيلو محمد واستاهل إلا عسيلو لكن هدو نكان نسب يهي أم حدني ما يقانو خيره نين أساق شر مامتا qabiilka uu ka dhashay ninka maanta madaxa intuu kor ugu soo qaaday ee Soomaaliya oo dhan ka kormarsiiyay ee seediyahan ku soo geliyay maanta inuu horta baalasha ka rifo ama uu cadow ku noqdo ama uu fashiliyo dawladdiisa ama uu asaga baabi'iyo ama ay noloshooda ku ciyaaraan ama ay meel ku xirtaan ama meel uga dhacaan ay wasaqeeyaan ee burush xarar kula wareegaan horta ma istaahin maxamed cabdullaahi laakiin doqonku baa la yiri doqonku markii uusan dad lahayn doqonka markuu lahayn famil doqonku markuusan lahayn qabiil doqonku markuu lahayn ehel ee sumad laawa yahay qof kasta dusha ka soo furay maxamed cabdullaahi maanta doqonku qabiil ma lahayn waxaadan u dhihin ninaan horta barsu ninaan sumad lahayn ninaan lahayn ninaana qabiil lahayn ninaana ehel lahayn sumad laawuu noqday maxamed cabdullaahina taa waxaa u keenaya doqonnimadiisaa u keenaya barkee ninka ragga waa inuu famil ka soo jeedaa waa inuu ehel leeyahay waa inuu walaal leeyahay nin gurigiisii reer farmaajo reerkii familkii uu asaga ka dhashay hagaajin waaye intaasoo soomaali ma hagaajinaya maxamed cabdullaahi ninka waddanka baabi'in doono weeye maxamed cabdullaahi ninka waddanka askarta hadda xasuuqeedaa loo soo istaagay askartii dalka ilaalinaysay ee dalka hogaaminaysay in la xasuuqo maxamed u soo istaagay marka anigu waxaan oran lahaa dadka baarlamaanka ku jira maxaa ka og tahay arrintan wiilkan ay qaraabada yihiin madaxweynaha arrintan uu ku kacay ee ahayd inuu beelo Soomaaliyeed gooni u aflagaadeeyay uu yiri waxaa jira 8 nin oo isku qabiil ah oo hal wasiir inta la siiyay 8 kalena ay banaanka la taagan yihiin dhagaxyo ma la dhihi karaa asaga naftirkiisa wuxuu ahaa qof la soo dirsado la soo adeegsado la yiri noo hadal ama madaxweynaha soo adeegsada ama qof kale soo adeegsaday no haddaan kuu sheegay marka arrintaana kaaga jawaabaya dhegayso ninka baarlamaanka ku jira ee ka hadlay horta baarlamaanka qof kasta wuxuu rabo ka hadli karaa xor buu u yahay mucaaradna waa noqon karaa muxaafadna waa noqon karaa qabiil ma aha meesha barkii aniga kula hadlaya أنا aniga kula hadlaya maxamed cabdullaahi idiga dambe anaa la dhashay oo aanay hooyaday dhaleen anaa calool uur hooyo ka soo wada baxnay anigana waa ka soo horjeedaa not inaan maxamed qabiil ugu hiilinayo not inaan walaal ugu hiilinayo ninka aad sheegaysid ood leedahay waa mareexaan ee lagu haysta facebooka ee baalasha looga rifayo horta nin kastaba wuxuu leeyahay aqligiisu leeyahay fikradiisu leeyahay hadduu rabana wuu raaci karaa hadduu rabana wuu diidi karaa not qabiil in loo aflagaadeeyo not qabiil oo dhan in loo caayo not dawlad 22 sano ka soo baxay hateen soo gudbay 27 sano laga joogo in qabriga joogo in laga soo faga maahan xor ee jooga baarlamaanka nin walbaba shakhsi buu yahay nin walbana wuxuu rabo ku hadli karaa because in cabdi shakuur aniga haddaad dhagahaaga ku maqlaysid in cabdi shakuur iyo in maxay lahayd in cabdi rashiid waa labada nin oo badda iibsaday
facebookana qabiil baa lagu ayidaa nin tuuga oo waddanka iibsaday oo badda iibsaday qabiil lagu ayida maaha ninkan ka soo horjeedana waa walaalka ila dhashay ma gartay nin dhulka ka dhashay ma jirto nin walba dad buu ka dhashay nin walba family buu ka dhashay laakiin Soomaali intee qabiil ay taagan tahay horta ma isu imaanayso aniga magaca Soomaaliyeed iyo calanka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed iyo calanka buluga iyo diinta naga dhaxaysa aawadiis baan u hadlayaa marka ninkaas hadlay ee la leeyahay 7 nin buu aflagaadeeyay 7 nin buu maxay ahayd hadlay waxaan ku sheegaa madal yar baa ku sheegaya ninkii la dhahayay fiqi markuu dhahayay 91kii yaa dagaalkii wadankii dawlad 22 sano jirtay ayaan 24 hours ku bixinay asagoo xildhibaana fiqi qof ka hadlay ma jirto aniga kula hadlay kama aan hadlin idagayso nin walba baarlamaanka joogana xor weeye wuxuu rabo ku hadli karaa qabiilna ma matalo maxamed cabdullaahina qabiil ma matalo maxamed cabdullaahi hadduu qabiil ku xiran yahay reer farmaajo soo urursan lahaa walaaladii eedooyinkii adeeradiis iyo qabiilkiis iyo jilibkiisu dhexda keensan lahaa maxamed farmaajo dadka ku hagan ee ku urursan ee qolka ku xirtay سفيعا oo magaciisa dadka lagu laynayo ayaa ku diidanahay dadna qabiil bay dad nin tuuga oo wadanka iibsaday oo badda iibsaday qabiil ugu ayidayaan no taas waa ka diiday because aniga ninkaan ila dhashay oo horjeedo dad inay qabiil nin ugu ayidaan oo khayra wadan ahayn oo wadanka iibsaday waa laga qaldan yahay Soomaali intay qabiil dhex taagan tahayna wax u hagaagay male laakiin maalintii Soomaali qabiil tuuraan oo anigoo kala noqdaan ay Soomaalinimo u soo biyashtaan Soomaalinimo la isugu imaanaya laakiin intay qabiil ay Soomaali hagooga yihiin wax isu imaanaya male nin kasto baarlamaanka joogana xor buu yahay dawladda waa raaci karaa waa diidi karaa caloosha loo soo buuxin karaa laaluush baa la siin karaa waa raaci karaa waa diidi karaa meel dhaxab nin kasta xor buu yahay laakiin waxa jirtay mooshin hadda mooshin in laga keenay walaalka maxamed cabdullaahi farmaajo in mooshin laga keenaa jirta hadeertaan arrintaas maxaa ka ogtahay maxamed cabdullaahi waa anaaba diyaar laaba oo dawladdiisa aaqitaankeeda ay tahay bishan soo socotay January idagayso aniga raalli ugu ah maxamed cabdullaahi dalka iyo dadkaba in laga qabto in mooshin laga keeno in laga tuuraana raalli ugu ah barkee khaain wadan waaye wadanka magaciisa lagu baabiinaya wadanka intuu hayayna dadka waa lagu xasuuqay qarax aan dhamaan baa jirto nin wataniya lagu dhiibay maxamed cabdullaahi been buu ku soo galay mas'uulkii loo dhiibay kama uusan soo bixin aniga waxaan oran lahaa oo baarlamaanka ka oran lahaa maxamed cabdullaahi waa in laga tuuraa kursiga haddii wadanka la rabo in la badbaadiyo dadka shacabka anaaba diyaar laah haddii maanta la yidhaho birri baa laga tuuraya wallaahi been ma kuu sheega anaa meesha ka alalaasaya because maxamed waa khayral wadan maxamed waa maxay hayteen waa nin waalan maxamed cabdullaahi nifiyow ma aha maxamed cabdullaahi nin sumad laawaa weeye maxamed cabdullaahi nin gurigiisi soo hagaajin waaye guri kalena ma hagaajinayo gurigiisi reer farmaajaa wasakh ah soo hagaajina intaas waxaan leedahay tiisa daryeelaa tu kala ku dara tiisa daryeelaa tu kala ku dara miyaana leedahay tiisa daryeelaa dad ku dara xaguu ku ogyahay ilmihiisii maanta ku ogyahay maxamed cabdullaahi waa asaga diyaaradda ka dhigtay baabuure ee sii socda lacag loo diray oo la dhahay noo soo tuugsi tag ee koofiyadda sixirka lagu akhrisaday loo saarinaye ilmihiisii xaguu ku ogyahay reer cabdullaahi xaguu ku ogyahay dadkuu ka dhashay ogyahay familkiisii xaguu ku ogyahay aawa dadkii halaha soo la ekaysiistay maxamed cabdullaahi wadan ma maamuli karo khayral waxa weeye maxay hayteen khayral wadan weeye khaa'in weeye maxamed cabdullaahi oo wadanka laga ridina wadanka ma badbaadayo maxamed cabdullaahi iyo tuugada inoo sheegtay siday damacsan yihiin way isleedahay sida inoo sheegtay sida ay baarlamaanka Soomaaliyeed ay maanta damacsan yihiin waxaa jira isku dhac xataa ka dhex jira aqalka dawladda sare iyo dawladda hooseba ka jira waxaa jira dhibaatooyin badan oo wadanka hadda ka taagan waxaa jira in mooshinkii la kala gadanayo oo midba mid fadliisayo oo yiraahdo madaxweynaha hadduu amar ku bixiyo in laga qaado khayra xilka uu leeyahay madaxweynaha maxaa la yiraahdaa uu qofba qof lacag la isku falisayo khayrana uu rabo in madaxweynaha xilka laga qaado madaxweynahana uu rabo in khayra xilka laga qaado isjiid aan ku jiiday waa gacmo daaris wax meesha ku dhamaadana waa shacabkii Soomaaliyeed
inta ay maanta xilka hayeen dowladda 8 Febraayo inta ay jirtay waxaa jira dhibaatooyin badan shacabka meesha ku laaday waa ogeyd qaraxii sooboo kale waa midaan laga samri karin qaraxii maanta dhacay wiilasha maanta dhintay kuma uusan jirin wiil 30 sano ka weyn wiilasha maanta ku dhintay maanta maxaa la yiraahdaa waa wiilal aabayaala waa wiilal masaakiina waa wiilal usoo kaba gashtay inay u adeegaan waxaan dhihi lahayn inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun waxa iskugu keen xigay qaraxyo iyo geeriyo aad u xanuun badan iyo dhibaatooyin aad u xanuun badan waxaan leenahay waxay taasi ku timid xisaab la'aanta xasuuqa shacabka iyo xisaab la'aanta dawladda waxaan ugu magac darnaa barnaamijkaas waa intaas waxaa jirtay in ay ku la'adeen dad ka badan 800 oo qof haddaysan gaarsiinin 1000 qof qaraxii soobe arrintaas maxaa ka ogtahay dhagayso markaan kuu sheegay marka arrintaas waxa kooban kuu sheegaa horta arrintaas maxamed cabdullaahi ayaa mas'uulka ah qaraxii soobe maxay ahaydeen dadkii lagu laayay maxay ahaydeen soobe qaraxii ugu xumaa ee soobe ka dhacay bariira dadkii lagu laayay askartii maanta la laayay ninkii Soomaaliga ahaa ee cadaawaha loo dhiibay kulli dambigiisa maxamed baa iskale kulli maxamed baa iskale because waxa la yiri ninka abeeso koriyow adaa u aaye khayre asaa koriyay markii abeeso soo gashtay hoosta abeeso ayuu dadkii iyo familkiisiba uga soo go'ay asagoo sixran oo meel u socda kala aqoonin oo meel u jooga kala aqoonin oo wuxuu ku hadlay ka aqoonin oo meel u maray aqoonin yaa dharka loo soo galiyaa koofiyad cad loo soo galiyaa diyaarad buu ka dhigtay maxay ahaydeen baabuur buu diyaaradii ka dhigtay Soomaali ma maamuli karo waa in la iska qabtaa waa in iska dejiyaa waa in ninkan maxay Soomaali laga qabtaa waa in ninkan la iska casilaa kow talabaad waxa ku sheegaya kursigu ku fadhi waa 4.5 kursigu ku fadhi waa 4.5 forkii dadkii laaxitaa maanta meel cid looga diiday markay kursiga waxa isku haysta marusade khayra isku haysta labada kursi ma garatay forkii xitaa wuu xaqira dadkii iska laaxitaa uu ka xaqira maxamed marka ani waxaan oran lahaa kursiga 4.5 weeye maxamed dawladdiisa in la rido waa ku taageeraya baarlamaankana waa ku taageeraya markaad labada kursi in laga tuuro waa ku guubaabinaya yes markay wadanka waa in wadanka hadda laga qabtaa meesha ku socda haddaana la qabanin waxa waa ma badbaadayo bas way noo dhamaanaysaa markii askarta haddii lagaa soo galo qaaliya askarta haddii lagaa soo galo qof kasta ku qabsan karo meesha Ethiopia nagu qabsan lahayd markii askarta hadii la xasuuqo waxa way cadow kasta ku qabsan kara maxamed cabdullaahi ma la dhihi karaa in ciidan quwad la ka dhismo maadaama la leynayo waxaa jirtay wiilal laga soo qaaday ayagoo loo diyaarinayo in laga soo qaado Puntland uu soo dhiibay Cabdiwali Maxamed Cali Gaas madaxweynaha Puntland uu soo dhiibay uu yiri dawladda ugu deeqaya in ayagoo meeshooda jooga lagu qarxin rabay oo qarax lala damacsanaa oo la qarxin rabay maanta waxaa dhacday in maxaa la yiraahdaa ugu yaraan la dilo markii la leeyahay horta dawladda ka jirta maanta Muqdisho waxaan dhihi lahayn waxaa jira kala qaris iyo kala qoqob wax la dhaho ay samayso waa ogeed shacabkii ku dhinta bariire waa la kala qariyay qayb baa la qariyay qayb baa la shaaciyay waxaa jirta dadkii ku dhinta soobe waxaa jirtay qayb inta la qariyay waa xasuusata waa nooga sheekayn doontaa dhibaatooyinkii dadkii meelihii la geeyay iyo dadka si loo kala qariyo dadka si loo kala xashay adaa nooga sheekayn doono wax badan baa ka ogtahay waa iiga fara dhowdhowda arrimahaas waxaa jirtay ii dhagayso waxaa jirtay wax walba oo dhaca in dawladda haafna la qariyo haafna la sheego dhibaatada ugu weyn oo waddanka ka taagan maanta waa taas haddii aad tiraahdidna waxaa isku haysta kursiga khayre iyo maxaa la yiraahdaa iyo kan madaxweynaha farmaajo iyo fahad yaasiin waa la wada haystaa dawladda waxaa haysta waa atoorayaal jilayaal iyo waxa la kala yahay iyo laadarin ma fahante jilayaal iyo laadarin baa la kala yahay waa saddexda atoore fahad yaasiin khayre iyo maxaa la yiraahdaa iyo wiil kale leeyahay taabid oo aad jilista ugu wanaagsan wiil taabid wiil kale leeyahay oo wiil aad jilista mustafa dhuxulowna ku dar mustafa dhuxulow ma arkin kaalin uu ka joogo ma arkin iyo meel uu ka hadlayo asaga igu sawirta kuma badna jilistu waxay ku badan tahay aad waxaa filmaanta baryahan dambe u jila oo jilistu ay ku badan tahay waa khayre iyo taabit fahad yaasiin wuxuu ku jiraa qolada undercoverka wax ka xukuma oo bustaha loo wan buu ku jiraa oo undercoverka wax ka xukuma oo ninka judge-ka oo laga soo hadal qaata waa asaga sida ay isku raaceen bulshada Soomaaliyeed maxaa ka jira kala qarinta iyo kala qoqobka shacabka Soomaaliyeed markii ay konton dhimato la leeyahay 25 baa dhimatay waa ogeed qaraxii soobe arrintiisa inaa nooga sheekaysaa rabnaa caawa
iyo shacabkii Soomaaliyeed ee la weysan yahay 200 qof meesha ay ku maqan yihiin horta mid baan kaa jaahil bixinahaya qaali sharaf naadir maxamed mid baa kuu sheegahaya horta ninkan Soomaalida u oyday ee kursiga soo saarteen aniga magacay la wadaaga ay walaalkay ah horta meesha waxba kama aha dad baa dadka laynaya dad baa dadka ka adeeganaya asaga qol mugdiyo ku jira hadaa rabtidna arintaas dadka imaqlahaya ama dawladda ku jira ama baarlamaanka ku jira way og yihiin maxamed cabdullaahi inuu qol ku jiro sheekadaana waxa wata waa Fahad Yaasiin oo asagana al-shabaab la shaqeeya iyo khayre iyo taabid iyo waxa wata Mustafa Dhuxulow marka ninkan horta wuxuu meesha ka yahay malahan magaciisaana dadka lagu laynaya dadkiina maanta heer waxa la gaaray xitaa dadkii sooba ku qarxay dadkii xitaa dhaawac ahaa xitaa dadkii dhintay xitaa qaar in badda lagu daro because waxay diidayaan in loo soo raacdo markii dawladda ka mid ah mas'uulka dadka maqan waxaana leedahay dawladda mas'uulka ah dadka baabiisay soobana dadka laysay dadkii maxay ahaayeen bariirana dawladda laysay oo maxay tahay Mareykanka loo saaray al-shabaab arinta dawladda ka dambeysay dhageyso talabaada ku sheegaya ninkan isla yiraahdo qalbi dhagaxna dawladda dhiibtay oo maanta uu cadeystay maxamed cabdullaahi ninkan dhaqanka ay magacay la wadaaga ee qolka ku xirana asagana uu cadeystay nimankii oo kala hadlin buu wuxuu yiri aniga anaa dhiibay bal inuu dhaqan yahay anaa dhiibay buu yiri magtiisaan bixinaya wax madaxweyne ku hadlamaya mise waa hadal nin weyn oo munaasib u ku hadli karo asoo nin wadani ah oo dalka u soo dhididay oo dalka u soo dagaalamay shalay doorashadii markii la dooranayayna uu been isku soo sharaxay uu wadani iska dhigay maxaq ilaahay ba ومايا نيرس waxaa idin cad marka leedahay idilay marka leedahay dadkii Soomaaliyeed oo shacabka maqan oo hadda 300 ilaa 200 lagu qiyaasay oo hooyooyinkood ilaa hadda ay raadiyaan in ay maalin raqdooda iyo ruuxooda helaan oo la leeyahay dad qaar baa waasay qaar baa iska duurka iska galay qaar baa dhaga beeray qaar baa maskaxdi beeray ma waxaa leedahay dadkaas cidna kuma magaalada Muqdisho kuma dhex maqnay badda Soomaaliya kuma qayihiin بدي سوماليا كم قيهين خير أنا كشبي فهد ياسين خير كشبي فهد ياسين يتابد يوالسلوق يهاي يمد كان معي هتر إنا إسلاو جروب كان ويسوقيهن أيجانا كشبي بركي وحديد يعني صار الله رعديسن أو لو جد بجرين دتك دنتي أو محيط جو عينا هل جد بيكون الشبان دتك طاو عهانا محيط الإسبتالات يداوي كيلو كري العقتين والعقت أي China iyo meelahaas hantida ku sameeysan boobayaan boob bay u yimaadeen oo guryaha ku sameysteen oo makiinadii xitaa dharkii askarta lagu toli lahaa xitaa warshadii ay China la aadeen naagtan maxamed uu qaba walaalkeed uu lacagtii la tagay China guryo ka sameystay marka groupkan group boob u yimid weeye wiilka Umar Faaruq la xameeya wiilka oo la dhashay xaaskan boobaan weeye ninkan khaain weeye waxa la yiri qofkaas soo saaray sida baan yiri saaxiibkiisa la fiiriyaa wuxuu maxamed keenay fiiri wuxuu ku xirtay fiiri waxay yihiin fiiri waxba ma dhaama asaga darkii asaga waxaanu dhan keenay asagana waxaan waxba aan ahayn asagana mas'uulka ah dadka dhinto dhan aakhiriya adduunna maxamed baa loo haystaa aakhiriya adduunna maxamed baa loo haystaa darkii asaa mas'uulka ah marka waxay u yimaadeen koox adduunku waa loo haystaa wuxuu mutaysan doonaa maxkamad asaga iyo khayre iyo taabid ayaa hadda wadanka ka taliya waxaa jirta in aysan xataa wadanku hadda uusan lahayn wasiir maxaa la yiraahdaa wasiirada ciidamada xukuumayay iyo wasiirada meelaha haystay inay iswada casileen maxaa la yiraahdaa iyo taliyayaasha ciidamada inay iswada casileen ayaa hadda ku cad oo hadda maanta cid tiirka loo keenayo loo soo taagayo aysan jirin qaraxyada maanta ciidanka la qarxiye hadda maxay ugu cadaan waayeen maxay isku casili waayeen lacagtii mushaharkii la siinahay dadka boobahaya khayre wuxuu boobahaya iyo Fahad Yaasiin iyo taabid iyo ina islaaw iyo Fahad Yaas iyo ninka la leeyahay Mustafa Dhuxulow dadkii mushaharkoodii ee adduweynaha siinahayeen ee la siin lahaa qofkii muxuu ku shaqeynaya haddii lacagtoodii la cunay haddii la boobayo lacagtii ee shacabka la siinayay maxay tahay shaqaalihii hadday boobayaan maxaa lagu shaqeynayaa marka waa inay iscasilaan marka marka maxamed cabdullaahi farmaajo afkiisii dhagihiisii isma maqlaan shalay wuxuu ahaa ninkii u soo istaagay horena waa u soo xusnay ninkii u soo istaagay oo yiri dawladda haddii ay amniga ku fashilanto waa inay iscasishaa maantana laga laayahay intooda mid iscasiloo yiraahdo bal inta xishooda qof baa tago oo dhintee waxaa taraysaa yaraa ma la dhihi karaa
aniga waxaan leeyahay maxamed cabdullaahi farmaajo walaalkay waa qaawan yahay dharkii baa ka dhacday adduunka ceebti iyo magacii iyo calankii buluugga ahaa adduunka wuu nagu ceebeeyey inuu iscasilo weeye waa inuu iscasilaa waa inuu shalayto sharaftii ku sheegaya haddaan wadi waayo waa iscasilayaa wuu ballan qaada ku tubmaray maxamed cabdullaahi waxaan leeyahay waa inuu iscasilaa وإنه إسعسلا محمد عبد الله ودن كوخيامي ودن كدبات بدن بوجيستي شعب كسومالي دبات بدن بالوجيستي دلك الصومالي دبات بدن بالوجيستي بوب يدعي وحاسعد بوب إن حوله شعب كمساكين تها محيا هاي تير هانتدي إلا بابا السجن قل له حرية السجن له شقة يستولي هذا بحر ناس توكسيتك أنت كوفيت عد لوجلي اللي يراد أرد ناتك عرفت مجا الله مجا رسول نور أنا قرأت كان حسوق قيداي تاسنا ما متيسنين شعب الصوماليات يدك الصوماليات كوفيدا waxaa fahmi weyne koofi baraa waxa ah meesha laga keenay iyo macnaha ay ku socoto ayaanta dambe waa arkayna koofi baraa waxa ah oo loo geliyo madaxweynaha waa aragnaa maadaama aysan ku jirin labiska madaxweynayaasha lagu yaqiinay kadib dowladda sheekh shariifna markuu xoogaa uu magaalada soo galo uu iska siibay marka koofidaas maxaa looga dalleeyahay كوفي براوي هرت الشيخ شريف وراكو شيخ الشيخ شريف نين ودادوها دقيسو الشيخ شريف نين ودادوها نين إلهي كبقى هيوها الشيخ شريف وايستاهل هدوك اشتري نين ودادوها ما يكرتي لكن محمد عبد الله أول وروت محمد عبد الله ما مقليسا محمد عبد الله ينيك قير اللي يرادو كوفي ده لو قلني وكوفي ده سحرك سحر waxa loogu galiyay koofiyadaas maxamed cabdullaahi magaalo kasta uu tago oo carabta uu dhoofo in wax allaale wixii lacaga iyo wax allaale wixii dahaba iyo wax allaale wixii jeegaga in looga soo daldasho naagtiisana u sameysay koofiyad sixir weeye waa sixir waa koofiyad sixir oo loo galiyay maxamed wadaad ma aha jihaadana way isaga dhuusan tahay waana wareersan yahay waana nin waalan waa nin aan waxba ogeyn waa nin adduunka wax ka kala socdaan ka warhaynin waa nin lagu shaqaysan hayo waa nin magaciisa dadka lagu laynayo waddanka lagu xasuuqayo marka aniga waxaan oran lahaa baarlamaanka iyo aqalka sare waxaan leeyahay dadka wadaniga ah oo ka hadla sida odawaayo kolonika ka hadlaya odawaa waa nin baarlamaanka ku jira aad iyo aad ayaan dhawaad khudbadiisana waan ka helay waan kuugu mahadcelinayaa sida aad u hadashay iyo wadaninimada aad ku hadashay aad baan ugu mahadcelinayaa odawaa iyo inta soomaalida baarlamaanka ku jirta maxay ahayteen aaminsan wadaninimada iyo dalka iyo shacabka soomaaliyeed ka dhidhiyaya aad iyo aad baan u garab taaganahay laakiin dadka caloosha iigu rid caloosha sida sakariyo kale ina jeenahaaroo kaleeto iigu rid caloosha iyo ninka la leeyahay maxay ahayteen iyo ninka la leeyahay maxay ahayteen ninka la leeyahay ii sheeg magaciisa odaygan baarlamaanka aqalka sare ku jira magaca mariixaan ila wadaaga ii sheeg asagana calooshii iigu geli ha ina goonjeex odayga oo ina goonjeex la leeyahay asagana calooshii iigu rid maxamed cabdullaahi calooshiisa kaliya ka xisaabtamaya dalkii iyo carradii iyo dhulkii iyo dadkiiba aan shaqo ku lahayn nin la dhiibay cadow loo dhiibay ku exibtigareeya maxamed cabdullaahi in loo dhiibo maxay tahay nin wadani ah loogu dhiibo maxay ahayteen Ethiopia loogu dhiibo iyo gabadhan yar ee bigbigleh ayadana magacay la wadaagata shalayta markii maxamed la dooranayay ugu ridaysay xasan sheekh ay diiday xildhibaanada kamid aheed ay diiday inay maxamed ugu rido maanta dhahaysa yaa daarooda kursiga waxa looga tuuraya qabiil maxamed kursiga qabiil loogama tuuraya maxamed shaqadiisu ka soo bixi waayay maxamed qayn wadan buu noqday maxamed beenaal uu noqday maxamed dadkii shacabkii iyo dadkii dalkii buu baabi'inaya wuxuuna u keenay dad dhacayo boobiyuu u keenay maxamed wadani ma maxamed magacii farmaajona waa ceebaya maxamed kursiga ha ka tago wuu qaawan yahan leeyahay waa walaalkay ha ka tago kursiga hadduu ka tegi waayana waxaan aad iyo aad codsigeedu ku soo celinayaa baarlamaanka waa inay si sharaf leh waddanka hadday rabaan inay badbaadiyaan waa inay si sharaf leh maxamed cabdullaahi uga qaadaan xilka because dalkii baa baaba'aya dadkii baa baaba'aya shacabkii baa baaba'aya askartii baa baaba'aysa boob iyo tuuganimay u soo jeesteen waxaa lagu maqaalaa in xilka qaadis lagu samayn doono 14 January arrintaas maxaa ka jira maxamed cabdullaahi farmaajo arrintaas 14 January waa ku faraxsanahay waana ku soo dhaweynayaa gacan furinaan ku soo dhaweynayaa maxamed halays dhaafiyo
maxamed ha la isdhaafiyo gruubkiisa ha la isdhaafiyo waddanka waxba uma hayaan waddankii way la degeen waddankii way baabi'iyeen waddankii way boobeen waddankii way dhaceen shacabkii way laayeen askartii way laayeen dadkii shaqaalihii shaqaynayay lacagtii way ka jarteen oo iyagaa boobay oo lacagtii dhacahaya dalkii way iibsanayaan dalkii cadow bay usoo hogaaminayaan waa in sida ugu dhaqsiimada badan le maxamed cabdullaahi looga dejiyaa la iskaga qabtaa ta kale kuu sheegayaa on ilaaway nin la yidhaahdo sheekh abukar madaxtooyada qol looga sameeyey ku qayila ku khilaaweeya sheekh abukar sheekhaasha ah fahad adeerkiisa waxaan fariin halkaan uga soo farayaa sheekh abukarow waa ku ogahay waxaad ku haysid madaxtooyada waa ku ogahay inaad qol degan tahay waa ku ogahay inaad ku qayshid waa ku ogahay inaad maxay hayteen ku khilaawaysid sheekh abukarow haddii lagugu soo fariisiiyey inaad maxamed cabdullaahi sixir aad adigan dhinac kula baabi'isid oo sixir ugu haysid fahad yaasiin reerahaad murursadana labada dhinac sixir ugu wadaan horta nin ilaahay ka baqahaya waa inaad noqotaa nin waxa ku jirta waa inaad ka baxdaa haddaad ilaahay ka baqaysid maxamed cabdullaahi waa sixiran yahay quraan saar quraan saar haddaad ilaahay ka baqaysid oo rasuulkiisana ka baqaysid waxaan ku leeyahay haddii waxaa samayn kara xaaska farmaajo laakiin ka reeb beel ha carabaabin oo qof walba ku jiro ha carabaabin waxaa ku sheegtaa haddii wax la samaynayo ama wax la qasay ama wax la haleeyey qof gooniya tilmaam laakiin hanugu carabaabin qabiil taasaa kaa codsan lahaa idil cabdullaahi waxaan waa ka raali gelinaynaa maxaa la yidhahdaa walaalaheena soomaaliyeed waa ka raali gelinaynaa waa kusoo celin doonaa idilan kusoo celin doonaa dib usoo celin doonaa sabraysyo kalena waa idin hayaa dad badan caawa inoogu martiya barnaamijka ma ahan keliya idil inay noogu tahay marti tahay dad badan ayaa inoogu jira barnaamijka oo marti inoogu ah haba ugu horeyse idil waxaan haddana soo qabanaynaa telefonkayga gacanta waxaan ka wici doonaa idil cabdullaahi farmaajo booskeedii ka istaagtay meesheedii ka istaagtay idil waa ku celinaynaa hadday inoo soo laabanayso barnaamijka howlo badan ayaa jira oo ka wada hadli doona caaway